الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qodobka 25aad ee ka hor istaagaya inaad gaartid yoolka aad leedahay oo sabab u noqonaya inaad ku fashishid meeshaad u socotay inaad gaartid iyo wixii inaad xaqiijisid aad rabtay ka hor istaagi kara waxa weeye inaad tiraahdid wallahi waxaan anigu hore uma samayn, ama aad tiraahdid waxaan aabahay ila awoowayaashay ma aqoon isirna uma aanan lahayn waxa kan iyada. marka taas iyada ah cudurdaar waxa weeye waahi ah, cudurdaar waxa weeye daciifa, sida guriga muxuu ahaa cankabuudka oo kale ama guriga carcarada. waxaan ma gaarin maxay tahay gaariga hadda ninka sameeyey awoowayaashis miyaa gaariga sameeyey, diyaaradda ninka sameeyey awoowayaashis miyaa sameeyey, wax kasta qofun baa bilaabay. adigu marka haddayna cidna igan gaarin waxaad misaal ka dhiganaysaa wax lamida oo la gaaray laakiin oo aan loogaga horeyn qofka sameeyey. korontada ninka muxuu ogaaday loogama horeyn, ninka muxuu ahaa duulimaadka marka hore isku dayay loogama horeyn, ninka wax kasta nin baa orod galaya maalan orodkii waxa weeye weligiis abayaashiis iyo orodkaas ma ayan qaadan, isagaa qaadanaya. marka wuxuu leeyahay anu ordi maayo isri abu ma lahayn. waxaa kaloo la mida guul darrada qofka usoo horseeda shaqo uu wax weyn ku helayo oo fiican ayuu helaya, markaas wuxuu leeyahay maya shaqadan iyada anaga isri abu ma lihin, abahay ma yaqaan ma samayn jirin, waa lagu caynaya awoowayaalkay wax noocaas oo kale. taasuna tanay la mid tahay waa ceeb. waa inaad wixii shaqo hadday yihiin oo xaaraanayan ahayn waa inaad u bareertaa haddaad u eegtid inay ku gaarsiinayso wixii aad u socotay. tan 26aad waa inaad tiraahdid waktiga lama joogo, wallaahi hadda waktigeeda lama joogo, waa samayn lahaa waxaan laakiin waktigeeda lama joogo, markuu waktigu fiicnaado baan tegi doonaa samayn doonaa. oo goormuu noqon doonaa? maxaase qiyaas ku ah adiga oo saacadda kuu sheegaysa waktiga ku habboon maxaa ii tahay? ma jiro, waa khiyaal, waa wax been ood isu sheegtay. maalan ninbaa wuxuu gaaray 40 sano, maalan dhaqaalihiisu waa iska shaqaystaa, ma guursan. haddii la yidhaahdo guurso wuxuu ku leeyahay weli way waktigu maaha, anigu gaari ma qabo, anigu guri ma qabo, anigu ma garanaysa dhaqaalo bangiya badan iima yaalin, aniga ma garanaysa ma haysto dhul gaari guri aan anigu iska leeyahay, alaabtii waxaasoo dhan iima dhamma. hal baan kuu sheegayaa saa haddaad qofka u fikiraya aad tahay weligeed heli maysid waqti iyo maal iyo fursad iyo wax oo dhan isku wada hagaagsan. ma laga helo adduunka waxbaa la isku kakabaaye lagama helo. marka haddaad tahay qof nooca u fikiraya ka waantood samay wixii maaratay aad istiraahdid waa samayn kartaa. xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam baa jiro oranaya 3 qoloba ilaahay waa taageeraa, waxaana ka mid ah ninka guurka u socda ayaa ka mid ah. gabdhuhuna waa la mid, oo haddii maalan gabar ilaahay maal fiican siiyey inay tiraahdo maaha nin aniga imaan la eg keliyaan sugaya oo guursanaya, maxaa yeelay kanu maalkeygu iga qaadanaya. la, taasuna waa qalad, lianna waxaa dhici karta in tareenka guurku ku dhaafo. dumarka cumrigoodu waa iska yaryahay guurka, marka maalkeeda hadday ku guursato oo ama nin ay ku doonato ay iskaalmaystaan wax ku jaban ma laha. maxaa yeelay kaas ay ku fikirayso oo maalka badan, oo hadday doctoreesa tahay doctor ah, injineerada hadday tahay injineer iyada la level ah, intay sugayso waqtigu sugi maayo. taasna marka waxaan oranayaa it will never be late, weligeed ma noqoto late.
it will never be late maaha, it will never be waxa aad sugaysid, the time will never be right. weligaa waqtigu ku noqon maayo midkii saxsanaa ah waxba baa kaa dhiman, laakiin geesinimo, kaliya adeeg, caqli, tadbiir baa la isku daya iyo ilaahay adigoo kaashada. tan 27aad waxa weeye inuu qofku yiraahdo aqoontii waxa lagu qaban lahaa ma aqaani, ma haysto maalkii aan ku qaban lahaa. labadaas cudur oo qofku ama khiyaal uu istuso waxa weeye waxay ka reebaysaa inuusan hore u kicin oo hadafkiisa uusan gaarin. haddaadan aqoontii lahayn, bini aadamku aqoonta uma wada dhamma. haddaad injineer tahay dhakhtar ma noqon kartid, haddaad muxuu tahay macallin ma noqon kartid faryaame. marka ma waxaa leedahay gurigayga faryaamo anaa u noqonaya, tuubiste anaa u noqonaya, tuubooyinka ka shaqeeya anaa nuuradaya? maya. aqoon hadday kaa dhiman tahay, ilaahay wuxuu ku siiyey dad walaala oo muslimiina ama aan muslimiin ahayn ee shaqadan yaqaana, waad u kaashanaysaa adoo dooranaya dadka ugu fiican oo shaqada yaqaana, markaasaad lacag ku siinaysaa. marka aqoontii waad soo iibsan kartaa, aqoontii waad soo iibsan kartaa. ninka shirkadda weyn iska leh ha u malaynin wax walba inuu yaqaano, ma wada yaqaano. xisaabiye isagii maaha, injineer isagii maaha, dhakhtarkii daaweynaya shaqaalaha maaha, kii xaqaaya maaha. isaga leadership iyo idaara maamul buu iyo hogaamin unbuu ka shaqeynaya. sidoo kale maalkuna waa la mid, oo haddaadan maal lahayn laakiin fikradaad haysid, marmarka qaarkood fikradda ka muhiimsan maalka. oo maxaa yeelay waxaad arkaysaa dad maal la fadhiya guryahoodii oo meelay geeyaan waayey, kuwaasaad helaysaa oo waxaad tusaysaa fikradaadu maalkooda waxay uga keeni karto. hadday ku qancaan oo fikradaadii iyo maamulkaagii iyo maalkoodii laysu geeyo, faa'iido labadii dhinaca ka faa'iidaano konton faa'iidada u kala qaadataan ama sidaatoodba ku heshiisaan. marka cudurdaar kuu noqon maayo, maal ma haysto, cudurdaar kuu noqon maayo, waqti ma haysto, cudurdaar kuu noqon maayo, aqoontii malihi. intaas ayaan maanta kusoo koobayaa arrimaha kaa hor istaagaya inaad yoolkaaga gaartid. wallahu subxaanahu watacaala aclam.